asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada f c t v barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay barnaamijka falaqeynta caawa wuxuu ku saabsan yahay arrimaha doorashada soomaaliya. sidaan la socono soomaaliya waxay maraysaa heer xasaasiya oo dhanka doorashooyinka dimuqraadiyadda ku saabsan. barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa 4 qodob oo kale ah midowda musharaxiinta madaxweynaha dalka soomaaliya, maxaa la gudboon. qodobka labaad wuxuu noqonayaa madaxweynaha galmudug qoorqoor ma yahay dhexdhexaad, mase laga filan karaa inuu uusan labada garabna taageersanayn. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa madaxweyne farmaajo doorasho wuxuu ka doorbiday dariiqii abiy axmed oo ahaa dagaal sokeeye iyo kelitalisnimo iyo doorashadii tii baarlamaanka iyo weliba tii ra-iisul wasaarahaba uusan qaban. haddaba sidaa la socotaan soomaaliya waxay joogtaa gabagabadii xilliga madaxweyne farmaajo ee ugu dambeysay 4 sano, taasoo soomaaliya ay gelayso kala guur, lana sugaya doorasho inay dhacdo sidii midii asaga uu ku yimid farmaajo oo kale ahayd. qodobka afraad ayaa wuxuu noqonayaa oo ah qodobka ugu dambeeya, shacabka soomaaliyeed maxay u daawanayaan dowladnimadii iyo dastuurkii oo la baal marayo, maxaase la gudboon oo maantay maaragtay ugu fiican oo ay uga bixi karaan waxa socda. la soco barnaamijka. daawadayaal haddaan ku bilowno qodobka koowaad, madaxweynaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya madaxnimada soomaaliya maxaa maantay la gudboon. heerka ay marayso waa aragtaan in madaxweynihii intaasoo isjijiida ay maaragtay iyo bulshada caalamka ay u bandhigeen, odayaal dhaqan ay u bandhigeen, asagii iyo maamulkiisii u bandhigeen, wax walba waxay samayn kareen waa sameeyeen. laakiin nin meel u caddahay meel ka madow baa la yiri. madaxweyne farmaajo wuxuu u jeedaa waddankan inuu kusii joogo si sharci darra ah, inuu xukun kusii hayo, waana wax adduunka ka dhaca maaha. maanta markaan ku leeyahay sharci darro baa inuu ku joogo farmaajo, waxaa ku jooga ismaaciil cumar geelle sharci darro, waxaa ku jooga abiy axmed oo ra-iisul wasaaraha etoobiya ah, waxaa ku jooga madaxweynaha dalka eritrea oo ah afawaki, waxaa ku jooga boqortooyooyinka sacuudi carabiya, imaaraadka, qatar, cumaan, kuwait, kulligood waa kelitalis, waddan famil u xukumo iyo dad aan doonayn inay xukun ka tagaan. markaan ku leeyahay inuu joogu doonayaa hala yaabin. midowga marka musharaxiinta madaxnimada dalka soomaaliya talaa ku caddaatay, mana garanayaan qaabkay uga bixi lahaayeen. only qaab ay uga bixi lahaayeen waa qodobka afraad oo hadda qodobadeeda caawa idiin sheegay ka mid ah, oo ah shacabka dhankiisa, inay shacabka kacdoon shacab ay sameeyaan. beesha caalamku waxay noqotay sanadahan dambe danaysi. beesha caalamku waxay mar walba beesha caalamku fiirinaysaa madaxweynaha kelitaliska maxaa danow kugu jira. waddan walba oo wadamada adduunka dana ayuu ka leeyahay. dalka soomaaliya weligiis wuxuu ahaa waddan istiraatiijiya. sidaa la socotaan soomaaliya waxaa isku diriray oo dagaal xun uu dhex maray, loolan xun uu dhex maray oo dagaal qabowa 70-meeyadii ilaa iyo maaragtay 80-meeyadii wadamada ruushka iyo maraykanka iyo weliba nato iyo warso markii la kala oran jiray china iyo isla socdeen, iyo ruushka iyo wadamo kale oo gruuba iyo north korea iyo nato oo ahayd European Union iyo Mareykanka. waxaa la isku haystay istiraatiijiyada Soomaaliya meesha ay ku taalo. waxaa la isku haystay maaragtay kheyraadkeeda, waxyaaba badan ayaa la isku haystay, badiyo beriba iyo hawaba. Soomaaliya beesha caalamku danaha ay ka leedahay hadduu madaxweyne farmaajo u fududeynayo, beesha caalamku sooma faragelinaysa arrimaha Soomaaliya. hadday soo faragelisana
si softly ah oo maaragtay dabacsan ayay u faragelinaysaa. haddaan maaragtay sii wado midowda musharaxiinta madaxnimada dalka beesha caalamka wax rajaa ay ka keenayaan lama arko. maamul goboleedyadana wax rajaa ay ka keenayaan lama arko. dhinaca maamul goboleedyada maamulka puntland iyo maamulka jubbaland waxay kasoo horjeedaan qaabka madaxweyne farmaajo wax u wado, laakiin arintaas sida aan u aragno waxay tahay arin madaxweyne farmaajo oo iska xallin karo, sababtoo ah madaxweyne farmaajo iyo labadaas maamul goboleed waxay ku wada yimaadaan qaabka soomaalida wax u wada qaybsato 4.5ka hal qayb ayay kasoo wada galaan. sidaa daraaddeed odayaasha dhaqanka iyo weliba siyaasiyiinta iyo weliba aqoon-yahanada ayaa xallin kara arrintaas, oo maaha arrin aada u adag. midowda musharaxiinta madaxnimada dalka maamulada hirshabeelle, galmudug iyo koonfur galbeed wax natiijaa kama laha, sababtoo ah dadka ka taliya ha noqoto guddoomiye baarlamaan, ha noqoto wasiiro, ha noqoto madaxweyne, dhammaantood waxaa meesha geystay madaxweyne farmaajo. wax rajaa meesha kama muuqato. inta halkaas uu gaarayay madaxweyne farmaajo, inta uu gaarayay maantay maaragtay boosishinka uu joogo iyo weliba garbaha uu leeyahay madaxweyne farmaajo maaha kuwa la nuuxin karo. haddii la nuuxiyana waxay noqonaysaa beesha caalamka uu ilduufo uu qaar uu maaragtay danooda u ogolaan waayo, marka ay yidhaahdaan ma ogolin musuq maasuqa aawadid. saasuu maaragtay uu ku jabi karaa madaxweyne farmaajo, ama kacdoon shacab oo maaragtay abaabulaan midowda musharaxiinta madaxnimada dalka. haddaan usoo gudbo madaxweyne farmaajo muxuu damacsan yahay. haddaan u gudbo qodobka madaxweyne farmaajo qodobka labaad ee madaxweyne qorqoor, madaxweynaha galmudug ma noqon karaa dhexdhexaad, sida hadda wararku ay sheegayaan inuu ka wado dhexdhexaadin midowda musharaxiinta iyo madaxweynaha soomaaliya, inuu ka wado dhexdhexaadin dhexdooda si maaragtay talo la iskula gaaro. waxaa su-aasha marka meesha imaanaysa ay tahay qorqoor waxaa geystay galmudug farmaajo. qorqoor wuxuu maaragtay xabad ayaa maaragtay looga saaray dadkii meesha haystay, madaxdii joogtay, wixii dhammaa dagaal iyo xoog baa lagu geeyey qorqoor. ninka xabadda lagu geeyey galmudug miyaa dhexdhexaadin ka suubinaya? galmudug ayuu wuxuu ka noqon waayey daacad, ma wuxuu daacad ka noqonayaa midda farmaajoya udhexaysa maxaa la yihahdaa midowda musharaxiinta? waa wax iska cad. qorqoor maaha dhexdhexaad, wax ka soo baxayana ma leh. dhexdhexaadinta u wadana waa mid lugooya, wax ka imaan doonana ma leh. haddaa u gudubno qodobkii adaayta aan sii hormaray oo ahaa farmaajo doorashada wuxuu ka doorbiday dariiqii abi axmed iyo afhawaakii eritrea. waa sax, dagaal sokeeyaa ka dhalan kara hadduu doorashada ku adkaysto inuusan qaban, ama uu qabto doorasho gacan ku rimisa oo isaga uu wato oo guruubada uu diyaarsaday oo ah galmudug iyo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo uu diyaarsaday. jubbaland inay u sallaxan tahay waa iska caddahay, sababtoo ah axmed madoobe iyo ninka la yihahdo farmaajo problemkeedu waxaa xallin kara boqorka daarood, waxaa xallin kara odayaashooda dhaqanka, waxaa xallin kara aqoon-yahanadooda, siyaasiyiintooda. waa wax la xallin karo. wuxuu ku xallin karaa farmaajo laftiisa dhanka dhaqaalaha iyo weliba isagoo booska uu ka joogo hadeertaan jubbaland uu hoos usoo dhigo. waa wax fudud. marka puntland iyo jubbaland xaggiisaa marinay, waa musuq maasuq ayay noqonaysaa, saas de xaggiisa ku maraan. galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabellena awlu musuq maasuq ku aasaasay, waxay noqonaysaa musuq maasuq. doorasho kasta uu qabto madaxweyne farmaajo hadduusan wax ka bedelin qaabka wax u socdaan waxay noqonaysaa musuq maasuq. waa tahay. haddaa u gudubno maxaa shacabka soomaaliyeed ay u daawanayaan in soomaaliya oo maantay heerkaas maraysa oo ay arkayaan in musharaxiintii guryahooda lagu weerarayo, xabad lala dhacayay, dad lagu laayay oo aysan shacabku ka hadal, in maxaa la yidhahdaa la xiray musharax oo shacabku aysan ka hadal, in intaasoo tacadi ay dhacday oosan shacabku aysan ka hadal, in jawaari xoog maalka looga qaaday ee guddoomiyihii baarlamaanka shacabku aysan ka mudaharaadin, in si sharci darro ah xasan cali kheyre looga qaaday xilkii asagoo awalba
xumaanta wax ka waday haddana aan shacabku aysan waxaas sharciga la baal maray aysan ka mudaharaadin shacabku ma wuxuu sugayaa madfac inuu ku bilowdo keliya haddaysan sida ay rabaan haddaysan wax u qaban shacabku aysan u istaagin danahooda iyo xuquuqdooda madfac ay ka warhelayaan marka shacabka soomaaliyeed waxaa la gudboon inay istaagaan oo ay dimuqraadiyadda garab istaagaan oo yidhaahdaan madaxweynuhu wuxuu ku yimid si sharci ah si sharciyuu ku joogi karaa laakiin isagoo aan si sharci ah u joogin madaxweyne nooma aha sida caalamka ka jirta dowladaha adduunka oo dhan maantay way dhacdaa meelo musuq maasuq uu dhacaa madaxweyne walba oo yimaada ma noqonayo madaxweyne dimuqraadiya madaxweyneyaal waxaa jira aada u hunguri badan oo ku xiran wadamo kale oo kalitalisa oo ku xiran wadamo kale oo dano leh oo danahaas dartood uu isugu dayay wadanka inuu xoog kusii joogo wadamo fara badan ayaa jira wadamadana caawinaya kamid yihiin jabuuti ka mid ah uganda ka mid ah etoobiya ka mid ah kulligood waxaa weeye kalitalis waa marka kulligoodna dadkooda low aad ayuu hooseeyaa levelka dadka shacabka ganacsiga iyo wax dhan way kala sarreeyaan sababtoo ah ninkii la rabaa lasoo dhaweynaya oo wadanku waa wadan kalitalis ah xuquuq ma laha shacabku soomaaliya marka macnaha looga fadhiya waxay tahay shacabka soomaaliyeed inay u istaagaan danahooda haddii kaleeto waxaa ku dhici doonta waxa ay hadda haystaan ayay weynayaan xorriyadda ganacsiga ay haystaan wax walbay weynayaan waxaa ku soo haray madaxweyne farmaajo al-shabaab iyo asaga xaggee kala tegayaan madaxweyne farmaajo al-shabaab iyo asaga sida ay ugala heshiiyo jubbaland iyo koonfur galbeed ayuu ayagana ula heshiin doonaa sababtoo ah waxaa arrintaas maaragtay ka noqon doona garwadeen dowladda qatar maadaama dowladda qatar ay u fara dhuudhuuban tahay argagixisada hadda ka horna dowladaha maraykanka iyo reer galbeedka ay ku eedeeyeen dowladda qatar inay caawiso argagixisada adduunka gaar ahaan midda soomaaliya iyo midda afghanistan iyo tii isis oo suuriya ka jirtay iyo dhulkaas ciraaq dowladda sidaasa ayuu madaxweyne farmaajo uu ka soo dhaweystay dowladaha adduunka heerka maaragtay dimuqraadiyadda soomaaliya aad ayuu u hooseeyaa 2016 ayaa ugu dambeysay xorriyadda hadalka xorriyadda musharaxa xorriyadda maamul samaynta waxaasoo dhan waxaa u dambeysay 2016 markii madaxweyne xasan sheekh meesha uu ka baxay inkastoo wadada maamul samaynta la faragelinayo asaga uu ku bilaabay galmudug iyo hirshabeelle madaxweyne galmudug iyo koonfur galbeed iyo jubbaland uu ku bilaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud asagana kusoo laabatay balaayadii waxaan filaynaa in soomaaliya ay ka dhacdo laba arrimood mid in jubbaland iyo puntland ay istaagaan oo dimuqraadiyadda soomaaliya u istaagaan oo ay badbaadiyaan oo farmaajo ay ka diidaan wax walba uu la yimaado oo maslaxada midda labaad waxaan maaragtay rajada labaadna waxay tahay in shacabka soomaaliyeed iyo midowda musharaxiintu ay isfahmaan oo lagu bannaan baxo dowladda si beesha caalamka ay indhaha ay maaragtay uga qarsan weydo oo ay weliba danaha ay ka leeyihiin soomaaliya ama danaha kasta u ogolaado ay socon waayaan maadaama mudaharaadyo ay jiraan madaxweynahaas inaan la doonayn ay dareemaan uu danahoodana uusan fulin karin maadaama lagu kacay madaxweyne lagu kacay oo shacabka ay ku kaceen way dareemi karaan dowladaha reer galbeedku inuu dana gaara uusan u fulin karin ayaga maadaama uusan shacbiyad haysan marka waxaa looga fadhiyaa taageeridda dimuqraadiyadda soomaaliya waxaa looga fadhiyaa inay taageeraan oo difaacaan dimuqraadiyadda soomaaliya shacabka soomaaliyeed dhammaantood iyo labada maamul goboleed ee maantay xorriyadda haysta sida maamulka jubbaland iyo maamulka puntland maamulada kaleeto oo saddexda ah koonfur galbeed jubbaland iyo koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug ma aha maamulo xorriyad ka haysta madaxweyne farmaajo oo keligood oran kara waxaas ma jiraan sidaan la soconno way ka seexdeen midowda musharaxiinta soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynihii hore xasan sheekh iyo madaxweynihii hore sheekh shariif iyo weliba cabdiraxmaan cabdishakuur labada maamul ay ka soo jeedaan koonfur galbeed iyo galmudug aan yidhaahde galmudug iyo hirshabeelle midna kamaysan qeybgelin doorashooyinkoodii midna kamaysan olayn oo daday wataan maysa geysan markii la dhisayay way joogeen waxay ku mashquulsanaayeen oo lagu mashquuliyey weli waxaa oran karaa xisbiyo inay samaystaan way idin marta middan laakiin kadabatag bay leedahay kadabataggu wuxuu yahay inaad samaysaan inaad maamulahaas dadka maanta maamulaya aad ka keentaan inay si fiican oo afkiina ay ku hadlaan oo afka shacabka ay ku hadlaan oo afka dimuqraadiyadda ay ku hadlaan
hadday ku hadli waayaanna inay ayaga ka bilowdaan inay ridaan intaa farmaajo ka bilaabi lahaydeen. sababtoo ah ayaga markaa ridaan farmaajo waa rideen. haddii hirshabeelle, galmudug iyo koonfur galbeed ay ridaan oo dad daacada ah saartaan oo ka nadiif ah inaysan farmaajo si gaara ugu hiilinayn, si gaarana uga hiilinayn oo dhexdhexaada ka dhigtaan, waxaa soo baxaysa inay natiijo dhexdhexaada waddanka ka soo baxdo oo doorasho dhexdhexaada ay dhacdo. laakiin asoo haysta hirshabeelle, koonfur galbeed iyo galmudug, farmaajo meelna uma socdo. waa boqolkiiba 90 inuu taageeri doono madaxweynaha jubbaland, madaxweyne farmaajo way iska caddahay. sababtoo ah 4.5 ayay waxay ku wada qaybsadaan halka pointi oo 61 xildhibaana ayay wada qaybsadaan oo isla leeyihiin. sidaa waxay ka dhigan tahay inay hal xisbi wada yihiin labadooda ayay ka dhigan tahay. ma aha marka barnaamijka mid halkan lagu soo koobi karo. saadaasheenu sidaas weeye. maaragtay waxaa naga talaa in shacabka soomaaliyeed ay difaacaan oo u istaagaan dimuqraadiyadda. waddan aan haysanna horumar ma haysto. sidaa iyo nabadgelyo. adigu ka raaco dantaada oo ayar u noolaa siday tahay u aalaa eri cagtadana yu imaan ruuxan ku ogsoonayn abalkaga